السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وعنا ونكس صاحب بيال ميل كاس دونيدا كجوجتان ku soo wada maanta iyo xubnaheena xusuusaha ee taariikheed ee kooxeed haddaba markii aan u eegnay kooxda Arsenal iyo xilli ciyaareedkii ay ku raaxaysteen ee ugu dambeeyay Premier League ku guuleystaan oo ay hadda abiti ku qaadeen horyaalka England waxaanu haddaba soo qaadan doonaa mid kamid ah taariikhdii xusuusood ee weyn ee Manchester United ma ogtahay mid kamid ah xilli ciyaareedyada kubadda cagta ee Manchester soo maray waayihii midka ugu xiisaha badnaa ama ugu quruxda badnaa wuxuu ahaa xilli ciyaareedkii 1998 iyo 99 markaas oo Manchester ay xilli ciyaareed ku wada guuleysatay taariikhda koob aan koox England hor ugu wada guuleysan hadda waxaanu soo qaadan doonaa taariikhdii guuleed ee Manchester iyo Premier League sanadii 1998 iyo 99 iyo waliba xusuustii gaarka la xilli ciyaareedka Manchester ka dhigay kooxdii ugu guulaha badneed waqtiga kubadda cagta saaxiib channel ku cusub tahay noo subscribe garaysi aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha Manchester United ma ogtahay xilli ciyaareedkii 1998 iyo 99 wuxuu u ahaa xilli ciyaareed innabaanu caadahayn Manchester waxa ay xilli ciyaareedkaas ka hor ay ahayd Manchester kuwa ku dhameystay xilli ciyaareedkii oo koob qaadin waxba koob qaadin laakiin xilli ciyaareedkii 1998 iyo 99 وحل عيارات كايه waxay ku guuleysteen saddex koob oo weyn bay ku guuleysteen oo Premier League FA Cup ka iyo Champions League way ku guuleysteen oo maxay xil ciyaareedkii ku horeeyay wax koob ku guuleysan markaas bay wiilashii Ferguson ee qatarta badnaa ee dhalinyarada ah ee cajiibka ahaa waxay sameeyeen arin cajiib xil ciyaareedkii ku xigay ee 98 iyo 9 markaas oo ay Manchester ku guuleystay horyaalkii Premier League sidoo kale qaaday FA Cup ka iyo waliba Champions League bay ku guuleysteen waxaanay ilaa hadda yihiin oo ay ahaayeen kooxdii ugu horeysay taariikhda Ingiriiska ee ku wada guuleysta hal xilli ciyaareed tartamadaas weyn ee ah Premier League FA Cup iyo Champions League marka waxay ahayd taariikh koox England ay sameysay ugu weyneed ilaa hadda iyaga warkoolkaas haysta cid kale oo sameysay ma jirto waxaase ka sii daran Manchester ta xilliga waxay ahaayeen kuwii ugu xoog badnaa xilli ciyaareedka oo dhan ayaa saddexda tartan oo dhan ama tartamada ay ka qayb gasho dhan Manchester waxa laga badiyay qura 5 ciyaarood baa laga badiyay oo ay ku jirto Charity Shield-ga oo laga badiyay Liga Cup-ka oo guuldaro ka soo gaartay Spurs iyo ciyaaro kale oo aan tafiro badnayn oo yaro 5 bagaaray xilli ciyaareedka Manchester laga badiyay iyagoo 33 ciyaarood aan beaten ahaa oo dhinacooda dhulka la dhigi kari waayay waxa xilli ciyaareedkaas uu ahaa Manchester xilli ciyaareedka ugu guulaha badnaa ilaa al'aan 98 iyo 99 qof kasto Manchester wuxuu ku leeyahay war xilli ciyaareedkaas ka hadal war xilli ciyaareedkaas bal fiiri maxay leeyahay waa xilli ciyaareedkii ugu guulaha badnaa Manchester Champions League yaa qaaday United war FA Cup keena isla United Premier League isla United waxa uu ahaa xilli ciyaareed aad iyo aad u weyn buu ahaa Manchester United xilli ciyaareedka hadaan u qabano dhanka Premier League Manchester United ayaa ku qaaday si dhib badan Premier League xilli ciyaareedka waxaanay 79 dhibcood ku qaadeen horyaalka Premier League waxaana ku soo xigtay Arsenal oo iyana ku dhibcaha haan keysatay 78 dhibcood wuxuu ahaa horyaal hal dhibc lagu kala qaaday xilli ciyaareedkaas horyaalkii Premier League hadii aanu eegno Manchester baa ku qaaday 79 dhibcood Arsenal baana keensatay 78 dhibcood Chelsea baana saddexaad timid 75 dhibcood wuxuu runtii horyaal la isku aad iyo aad loogu kala yani wuxuu horyaal aad u weyn buu ahaayo waliba Leeds ayaa booska afraad timid waxaase hees cross sanadka u laabtay kooxaha Forest iyo Blackburn iyo Charlton haddaba xilli ciyaareedka 1998 iyo 99 Manchester ayaa noqotay championka Ingiriiska Arsenal xilliga waxa watay Arsene Wenger Chelsea waxa watay xilliga Gianluca Vialli waliba waxaan xasuusnaa Liverpool watay Gerrard Holler Manchester waxa watay Alex Ferguson xitaa Spurs baa beriga waxa watay George Graham ugu xilli ciyaareedkaas Manchester ay ku guuleysanaysa Premier League iyo saddexda koob ee taariikhiga ay ku qaadeen sanadka markaan Premier League xaqiisa agno hadii Manchester ay ku guuleysteen horyaalka Premier League sanadkaas wuxuu ahaa sidii sanadkii la soo dhaafay la mid ahaa kadib markii sanadkii la soo dhaafay horyaalka Premier League la soo dhaafay sanadkii hore waxa goolintiisa kala qaybsaday Mohamed Salah iyo Mane oo lagu daray Beric Aubameyang wuxuu ahaa mar kale oo taariikhda Premier League lagu arko in saddex nin ay kabta wada wadaagaan oo mid kasta kab la siibay noqotay markii ay min 22 wada gool ay wada gaareen ciyaartooyga sanadkaas 98 iyo 9 Premier League Manchester ay qaadaysay waxa goolintiisa isku qabsaday oo min 18 gool ku wada qaaday oo min 18 gool wada dhaliyay Xavi Floyd Hasselbank oo Leeds ahaa beriga Leeds aad u qatar badneed oo afraad bixita kaga dhameystay horyaalka Michael Owen oo Liverpool waxa uu isaguna 18 gool leeyay iyo Manchester ninka uu
ciyaarayay York oo isaguna dhaliyay 18 gool marka xilli ciyaareedkaasna wuxuu ahaa xilli ciyaareed kale oo la kala qaybsaday goolinta Premier League saddexda ninba 18 gool ay kaysteen taas oo ka dhigtay in min kab la kala siiyo ciyaartoy kasta waa sidii sanadkii la soo dhaafay oo Beric Aubameyang iyo Salah iyo Mane ay kala qaateen xilli ciyaareedka xitaa waxaa min 17 gool dhaliyay ciyaartooyga Nicolas Anelka oo Arsenal ahaa iyo Andy Cole oo United ahaa iyo ciyar kale ayaa badnaa 15 gool waxa dhalin orange Richard Dublin ba gaaray goolal gaaray 14 gool Fowler oo lagu daray Alan Shearer waxaana sanadkaas ragga Premier League hadriga ka dhaliyay kamid ahaa Michael Owen oo laba jeer hadrig gaaray Dublin oo mar gaaray Fowler oo mar gaaray hadrig Fowler oo mar kale gaaray York oo mar kale gaaray Anelka oo gaaray mar kale Solskjaer Ole Gunnar Solskjaer macalinka maanta Manchester kulankii Manchester United ay 8 gool iyo gool ku garaacay Tottenham baa uu Ole Gunnar Solskjaer oo maanta macalinka Manchester waxa uu dhaliyay hadrig sidoo kalena ciyaartoyga xilli ciyaareedka ugu caawinta badnaa wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo Dennis Bergkamp oo Arsenal u ciyaarayay markuu 13 gool caawiyay isaga iyo Jamie Floyd Hasselbaink ba ahaa ragga ugu caawinta badnaa Beckham ayaa isna ku jiray ragga ugu caawinta badnaa isagoo 11 gool caawin gaaray waxaase sidoo kale jiray Ginola oo isaguna ahaa Tottenham oo 10 caawin gaaray ira kala badan sanad ciyaareedka abaalmarinta macalinka bisha Premier League waxa loo kala qaybsaday Alan Karabashli oo Charlton baa la siiyay abaalmarinta macalinka bisha Johan Grebia ku xigay Martin O'Neill baa ku xigay Redknapp mar la siiyay Ferguson mar buu qaatay laba jeer buu Ferguson qaatay ninkii ugu badnaa buu ahaa xilli ciyaareedkaas tababaraha ugu fiican sanadka waxa loo doortay Alex Ferguson oo Manchester ahaa ciyaartoyga ugu fiican xilli ciyaareedka waxa loo doortay Down York oo Manchester ahaa loo doortay daayirka ugu fiicanna horyaalka waxa loo doortay ninkii Arsenal u ciyaarayay Nicolas Anelka xilli ciyaareedkaas kooxdii Premier League ugu fiicnaadna waxa loo doortay Michael Merti oo ladies goal haya u ahaa iyo Gary Neville iyo Sol Campbell iyo James Tam iyo Dennis Irwin iyo David Beckham iyo Emmanuel Petit iyo Patrick Vieira oo lagu daray David Ginola weerarkana waxa joogay York iyo Anelka haddaba ogow xilli ciyaareedkaas 1998 Manchester baana ku wada guuleystay FA Cup-ka iyo Champions League iyo horyaalkaba ku guuleysatay waxayna hayeen kooxdii ugu horeysay lan taariikhda sidaas sameeysa waxaanu sidoo sanadkaas kale uu ahaa xilli ciyaareedkii toddobaad ee la ciyaaraba uu ahaa horyaalka Premier League maxaa yeelay magaca Premier League waxa la bixiyay 92 tani markii magaca Premier League la bixiyay 92 waxay ahayd xilli ciyaareedkii toddobaad horyaalka Premier League la qabtaa Manchesterna waxay ahayd markii shanaad ay ku guuleysanayaan magaca Premier League intuu jiro wali waxay ahayd markii 12 oo taariikhda Ingiriiska ku guuleysanayaan Manchester United sanad ciyaareedkaas oo ay saddexda ku wada guuleysanayaan waxyaabaha saaciday waxa kamid ah saxiyada xilligaas yimaaday waxa aad loo soo dhaweeyay imaanshaha difaacii Hollandeeska u dhashay ee James Stam oo nin aad u khatar badan ahaa iyo sidoo kale York oo isaguna nin aad u halis u badnaa oo xilli ciyaareedka yimaaday walibana ninka ugu goolasho badnaa Manchester xilli ciyaareedku noqdaba isagoo 28 gool gaaray tartamadoo dhan halka horyaalku ka dhalay 18 gool oo kabta la qaybsaday ragga Kaaye weyn haddana wadna xagga Champions League ay Manchester sanadkaas ka qaaday kooxda Bayern Munich Manchester iyo Bayern Munich oo finalka Champions League isla gaarayba waxay ahayn kuwa isku group aba yahayn groupko kaalintooda taa Bayern Munich baa ku soo baxday gruubyada Manchesterna 10 dhibcood bay la timid kan labaad bay ku soo baxday sanadkaas Barcelona baa saddexaad ku dhameysatay oo Barcelona way ka weysay sanadka ayo Bayern Munich ayaa kaalintooda ku soo baxday groupkeeda xilli ciyaareedka ka halka Manchester ay labaad ku soo baxday oo Bayern Munich 10 dhibcood Manchesterna 10 dhibcood bay ku soo baxday xilli ciyaareedka ayo Manchester iyo Bayern Munich marka oo isku group ahaa ayaan isla gaaray finalkii Champions League waxa kale ogaataa Manchester markii group ka soo baxday lood kaga soo baxday waxay wareegii mataqaana hore ku dhacday kooxda kubadda cagta Inter Milan bay ku dhacdayo iyagoo lugtii hore ku garaacay 2 gool yabar York bana maalin labada gool ba dhaliyay maalinka lugtii labaadna gool bay ku dhamaatay Scores ba Manchester u dhaliyay goolka kadibna Juventus waxay raadeen kadibna wareegka waxay la ciyaareen kadib markay Inter Milan reebeen Juventus bay hadana la ciyaareen semi-finalkii waxa uu ahaa xilli ciyaareed Manchester yaab uu ahaa laba koox oo Italiano aad u xoog badan isku daba dareen markii hore Inter bay soo reebeen markii Inter ku soo reebeen wareegga damaadkana waxay semi-final ku reebeen kooxda kubadda cagta Juventus ciyaartii hore Inter iyo Manchester dhex martay gool bay ku dhamaatay markii uu Giggs mar dambe ciyaartu bareejay Juventus kadibna Juventus markii dambe waxa lagu garaacay goolal gaaraya 3 gool oo Manchester ba ku adkaatay kulankii hore markuu gool ku dhamaaday waa goolal ay dhaliyeen Keane iyo u dhaliyo York iyo gool u dhaliyo Cole ay ku soo baxeen Manchester finalkii baa la gaarayo waxay la ciyaarayeen kooxda Bayern Munich oo gool intay horumartay mar dambe waxaana ciyaartu la isla gaaray 90 daqiiqo hal gool iyo eber nimeel u socdo ma celin kartaa alla Manchester xoog badan ba ahayd yaaqay ee sanadkaas saddexda koob weyn ku wada guuleysanaysay waxay ahayn koox aan naban caadi ahayn laba Italian baa la soo dardaray markaas Bayern Munich loo yimaaday oo Munich inta gool horumartay ba 90kii hal iyo eber wili tahay markaas ba Elbrix saddexdii daqiiqadaha ugu dambeeyay ciyaarta lagu daray ballaad ka yimaaday geeska Sheringham uu 91 daqiiqo ciyaartu ka dhigay gool iyo gool wax yar kadib Elbrix ugu dambeeyay Farenbiid afka lagu hayna Solskjaer oo hadda macalinka Manchester ah
ayaa goolkii guusha dhaliyo waa niman yaab leh saddexdii daqiiqo ugu dambeeyay lagu daray ciyaarta baa laba gool lagu keensaday waa mid kamid ah taariikhaha kubadda cagta ee Champions League ee aan weligood la ilaabi doonin Bayern Munchen ilaa hadda madaxa baa ku xanuun marka mid xasuustaan waana mid kamid ah waxyaabaha xusuusta leh Manchester weligood lagu iloobi karne ya hal ever 9ka saddexdii lagu daray Sheringham Wash wow goal kadib 93 waa ka Solskjaer wow 91 kun baan habeenka tayraal joogayo Manchester baa noqotay kooxda ku guuleysatay Champions League iyagoo dhameystiray saddex leedii koob sanadka Premier League FA Cup iyo Champions League kadibna taageerayaal badan baa isugu soo baxay magaalada Manchester waxaana loo soo dhaweeyay si aan inaba nucaadayn baa lagu soo dhaweeyay magaalada Manchester waxay ahayd kooxda xilli ciyaareedka ugu guulaha badnayd bay ahayd kadib xilli ciyaareedkaas markuu dhamaadayna oo ay Manchester saddexda koob ku guuleystay Manchester ayaa noqotay kooxda ugu taajirsan kubadda cagta adduunka bay noqotay oo kadib sponsoradii iyo waxyaab adduunyada dhan ba Manchester ba ma taqaana ay la tacaamilayso xayisiinadii iyo sponsoro badan ay heshay dunida waxaanay Manchester markaas noqotay kooxda adduunka ugu taajirsan bay noqotay oo war Manchester tad maanta arkaysaan adduunku waa soo waashay oo waxa laga qabtaan bay ahaayeen aan ku sheego ciyaartoyga sanadkaas taariikhda dhigay ee Manchester u ciyaaray saddexda koob ku wada guuleystay oo Schmeichel baa kamid ahaa Gary Neville baa kamid ahaa Dennis Irwin baa kamid ahaa David Moyes baa ku jiray Ronnie Johnson James Stam David Beckham Nick Booth Andy Cole Teddy Sheringham Ryan Giggs Philip Neville John Cruyff waliba liiska waxaa ku jiray Roy Keane oo kabtankii ahaa waliba Paul Scholes baa ku jiray York baa ku jiray Ole Gunnar Solskjaer baa ku jiray waxaa ku jiray nin la yiraahdo West Brom iyo kuwa kale badan baa ku jira liiska sanad ciyaareedkaas ciyaartoyga Manchester ay soo gadashay aad u xoojiyay waxay ahaayeen James Stam iyo Brokovski iyo John O'Shea iyo Don York iyo raggii sanadka ay soo gateen bay ahayd waxaana dhowr ciyaartoy ku fasaxeen xilli ciyaareedka amaah badan halka kuwa qaarna iska direen ogow marka xilli ciyaareedkii 1998-99 wuxuu ahaa xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadii Arsenal xasuus weyn ay ku leedahay xilli ciyaareedkii 2003-2004 oo horyaalka Ingiriiska ambiitin ku qaadeen ogowna Manchester xilli ciyaareedkii 1999-98 wuxuu ahaa xilli ciyaareed tartamada Yurub dhan ay qaadeen badankooda Premier League FA Cup iyo Champions League waana kooxda qura ee taariikhda Ingiriiska isku wada qaada koobka iyo wada weyn haddaba inta ku dhaafno taariikhdii xusuus ee mid kamid ah kooxaha kubadda cagta iyo waxyaabaha ka sameeyay kubadda cagta iyo horyaalada ugu xiisaha badnaa iyo waqtidii koox ay u hayd mar aad u fiican oo aan xusuusanaynay maanta nabadgelyo anigoo qadar badan la socodsiinay taariikhda xiga baa noo balana haddii aad qayb toos nagu soo reebi kartaana hadday tahay taariikh kooxeed ama mid ciyaartoy ama xilli ciyaareed ama records wax badan halka aan ku soo gudbi doonaa insha Allah nabadgelyo